Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga qaaliga ah meel walbo adduunka aad ka joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada maanta waxaan samaysan doonaa jabaati qaab kenyaanka ay u sameysanayaan waxaan halkan ku haystaa 1 kiilo oo bur ah 2 qaando oo sokor ah qaandada cuntada haaf qaandada cuntada oo cusbo ah waxaa kaloo kusoo darsaday 3 xabo oo ukun ah waxaa isticmaalayaa 3 koob biyo qandac 1 kiilo burka waxaa ku darsanayaa kaliya 3 koob oo biyo qandac ah qiyaasta si aysan kaaga halaawin oo burka sidii la rabo uu kugu noqdo saa u jeedaanba markii hore waxaa u isticmaalay mashiinta kadib gacantayda kusii xashi doonaa ugu yaraan waxaa xashayaa 15 daqiiqo ilaa ku dhawaad 20 daqiiqo ah si uu burkayga si fiican iskugu dhex galo kulama aad cajiinkaaga ama burkaaga aad si fiican u xashto waa kulama ay sabaayadaadii ama waxaad burka ka sameynaysa uu ku wanaagsanaada marka walaalahayga qaaliga haddii aadan haysan mashiinta waxaa ku samaysan kartaa gacantaada aniga mashiinta yacni howl fududeys oo isticmaalaya burka maadaama uu badnaa uu fahmi lahaa kiila aan sameynayay walaalaha qaaliga si aysan qiyaasta kaaga halaabin waxaa rabaa inaan mar kale inta ku celiyo waxaa halkan ku haystaa oo ka sameynayaa jabaatida maanta Soomaalida sabaayad ay dhahaan Kenyaankana jabaati ay dhahaan muhiimada qof si uu u yaqaano qofba si uu u dubtaa wax kaliya waxaa halkan ku haystaa 1 kiilo bur ah 2 qaando oo sokor ah waxaa kaloo ku daray wax yar oo cusbo ah qaando haafkeeda ah waxaa kaloo ku daray 3 xabo oo ukun ah biyaha oo qandaca ku qasay waxba caanaha kuma aanan darin si fiican u xashayaa ilaa uu iska dhex galo waxaa kaloo walaalahayga isticmaalay markaa xashayay 2 qaando oo saliid ah hal mar kuma wada darin marba markii raba hal qaando isticmaalay marka kalentana hal qaando isticmaalay waa ku xasha kartaa waa u jeedaan burkaygi sida xanjada camal inta u jiidmaya waxaa waaye kulama aad burkaagii aad si fiican u xashto sabaayadaadu way ku qurxoonaanaysaa sabaayad safti jileec ay halkaas kaaga soo baxay marka walaalahayga qaaliga ah burka sidaas dheerka u fidinayaa haddaa rabtid adiga gacantaada oo ku kala baxsan kartaa sidaas dheerka ah oo jajari kartaa waa isku soo celini waa la laabay sidaas dheerka u laalaabaysaa hadhow dambe sidaa u fidin doonana waa ila arkaysiin wuxuu kuu noqonayaa burkaaga markaa saas u laalaabtid hadhow wuxuu kuu noqonayaa wuu ku kala baxbaxayaa jabaatidaadana waxay kuu noqonaysaa dabaqaday kuu noqonaya yacni gudaheeda waa furfuri kartaa waa kaasaa walaalahayga waa soo diyaariyey saxankaasaa kusoo diyaarsaday waa kaasaa waa soo wada diyaariyey hadeertaan waxaa rabaa inaan fidiyo waa u jeedaan saasaa kasoo wada dhigay waa soo wada laalaabay haddana walaalahayga qaaliga ah meesha waxaa marsaday xoogaa yaroo bur ah si uusan iiga dhagin kadib waa isla dhex gelinaya waa ujeedin faraha sidaa ka yeelaayo wax yaroo bur ah isna kor ka marsanayaa kadib fidiskana wuxuu ka qaadanayaa kaalin muhiim ah waa ujeedaan sabaayada siday tahay gudaha ka dareemaysa hadeertaanba inay dabeeqadeeda u jeedi kartaan ama arki kartaan aan filayaa waa kaasaa sidaa u fidinaayo fidintadan aad ugu taxadira laalaabitaankana kaalin weynay ka qaadanaysaa kulama aad laalaabto oo si dheerdheera u laalaabto wuxuu ku noqonayaa yacni dabaqada hadeertaana ka dareemaysaa burka marka aad fidinaayo xariiqmaha markii saliidda saaran tahay waa arkaysaa in sida like way wareejisan tahay camal inta u egtaa marka walaalahayga qaaliga haddii aad ka hesheen waxaa idinka codsanayaa inaad like-ta ii saarto la wadaagta asxaabtaada wixii fikrad ahna qaybta commentiga ah iigu reeb wixii tali iyo tusaalahana waan soo dhaweynayaa waa ujeedaan walaalahaygaas sidaas tartiibka ah burka khafiif saa'id ah maahan soo burkayga iskula eg yahay ma i dhiwaayo oo ujeedaan sababtoo ah inta aanan fidin ka hor waxaa sameeyey kuuskuus isla ega u jaray kadib inta aanan fidinin waxaa sameeyey oo ujeedeen si dheer ka dhigi kabacdi waa soo laalaabay markaa soo laalaabay fidsaday haddii aad marka hore fidsan lahayd sidaan muusan ku noqdeen marka walaalahayga qaaliga ah marka hore markaa qasaysid si fiican iskaga xash kadibna kuuskuus isla ega u jarjaranaysaa inta aanan fidin ka horna waxaa sameynaysaa sida fiidiyowga kusoo arkaysay dhuubkaas inta gacantaada ku sameysid
aad laalaabaysaa sida jabaatida caadadiisa. Inta aanu fidin ka hor waa la laalaabaa birta ee taawada soo saaranay. Kadib qaandada soo qaadanay saliida kor iyo hoos ka marinaysaa. Sidaas quruxda badan oo guduudka oo kugu soo baxaya. Walaalayga qaaliga ah intii aan ku kulmi doono muuqaal kale oo cusub waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.